in ka badan 20 murashax ayaa ilaa hadda shaaciyeen yihiin murashaxiin u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya halka qaar kalena ilaa hadda aysan iskeenin bannaanka waxaana sababta lagu sheegay inay hadda shaqooyin hoose ay wataan isla markaana ay aakhirka bannaanka iskeeni doonaan ama ay shaaci doonaan murashaxnimadooda xilka madaxweynaha Soomaaliya doorashada Soomaaliya waxaa sanadkan la filayaa in lagu bixiyo lacagtii ugu badneed ebed oo ku baxda doorasho ka dhacda Soomaaliya waxaana loolanka isaga hari doona murashaxiin badan oo hadda Muqdisho ka wada dhaqdhaqaaq ismuujin ah warbixintan waxaan ku soo bandhigaynaa 5 murashax ee ugu lacagta badan murashaxiinta bannaanka iskeena waqtigan ee u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ma jirto baaritaan rasmi ah oo lagu sameeyo dhaqaalaha murashaxiinta hase yeeshee waxaa jira xogo laga helay shaqaale aad ugu dhow iyo xubno siyaasiyiin oo qaarkood qayb ka ah ololahooda doorashada ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya murashax Xasan Cali Khayre ayaa la aaminsan yahay inuu ugu dhaqaale roon yahay murashaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Cali Khayre koor inta loo magacaabin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya bilowgii sanadkii 2017 ayaa la sheegay inuu ahaa maalqabeen waxaana sii kordhaya lacagtiisa intii uu joogay xafiiska waxa uu sanadkan ka mid yahay shakhsiyaadka rajada weyn ka qaba doorashada Soomaaliya inkastoo ay jiraan caqabado badan oo ku horgudban murashaxan sidoo kale Xasan Cali Khayre wuxuu ka mid yahay murashaxiin faraku-tiris ah oo dhaqaale ku bixinaya xubno xildhibaano ah kuwaas oo soo galaya labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale safka ugu horeeya ku jira murashaxiinta xilka madaxweyne ee sanadkan dhaqaalaha ugu badan ku bixin doona amaba haysta dhaqaale ay ku tartamaan Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu leeyahay saaxiibo badan oo maalqabeeno ah hay'ado ganacsi iyo taageero caalami ah sidaan ka soo xignay ila xogogaal ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu qayb ka yahay murashaxiinta rajada weyn ka qaba doorashada Soomaaliya markii loo eego dhaqaaqa siyaasadeed uu ka wado gudaha waddanka dadaalkiisa waxaa qayb ka ah inuu dib u soo celiyo ugu yaraan 93 xubnood oo ka mid ah xisbigiisa kuwaas oo qayb ka ahaa baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya doorashada hadda ka bilaabanaysa Jubbaland ee aqalka sare 4 kursi ee la soo gudbiyay Xasan Sheekh Maxamuud waxa ugu jira 2 xubnood kuwaas oo kale ah Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo Iftiin Xasan Baasto waxaana la sheegay inay qayb ka yihiin xisbiga UPD Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la sheegay kaliya inuusan ku xisaabtamin lacag oo doorasho ku galo hase yeeshee waxaa la sheegay inuu leeyahay xididdo siyaasadeed oo waaweyn kuwaas oo suurta gelinaya inuu mar kale saameyn weyn ku yeesho doorashada Soomaaliya madaxweynaha muddaxileedkiisa dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan ilaa hadda shaacin murashaxnimadiisa ayaa sidoo kale qayb ka ah murashaxiinta xilka madaxweynaha ee lacagta u huri doona inuu mar kale helo kursigaasi amaba uu ku soo laabto madaxtooyada Soomaaliya madaxweyne Farmaajo wuxuu murashaxiinta kale kaga duwan yahay waxaa qoyan raadadka guuldarrooyinkii maamul intii uu joogay xafiiska kuwaasoo laga yaabo inay ku noqdaan caqabadaha ugu waaweyn oo wajihi doono lacag kasta oo uu bixiyo dadka dursa arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxay qabaan in madaxweyne Farmaajo uu weli maamulayo dhaqaalaha qaranka taasina ay keeni karto shaki badan sanadkii 2016 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo xilka ka sii degaya isla markaana ahaa murashax madaxweyne ayaa lagu eedeeyay inuu doorashadiisa u adeegsado hantida qaranka waxaana dhici karta in madaxweyne Farmaajo uu wajaho eedo kuwaas la mid ah Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa si isku mid ah safka hore ugu jira ayagana murashaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ee lagu tuhmay inay haystaan dhaqaale ay ku iibsan karaan codadka baarlamaanka amaba waxay ku jiraan murashaxiinta rajada wanaagsan ka qaba natiijo fiican inay ka keenaan doorashada Soomaaliya madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo sanadkii hore rajo wanaagsan ka qabay doorashada Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay in sanadkan uu ka rajo wanaagsan sidii hore markii loo eego dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba dad badan waxay sheegayaan in sanadkii hore arrimo dhaqaale ee sabab u ahayd inuu ku guuldareyso doorashadii Soomaaliya hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sidoo kale waxaa la aaminsan yahay inuu wado abaabulkii ugu dambeeyay ee doorashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu kala hore baraha bulshada ay ku kulmaan ee internetka uu ka bilaabay in dadweynaha Soomaaliyeed ay maalgashadaan isaga intii ay maalgelin lahaayeen dawladda shisheeye inkastoo ay dad badani ay qabaan inuu haysto taageero dibadda ah oo dhaqaale kuwaas oo ku geli karo doorashada Soomaaliya inkastoo wax kasta ay isbedeli karaan haddana dadka xogogaalka ah ee doorashada Soomaaliya waxay qabaan in shantaasi mas'uul ee kor ku xusan ay haystaan dhaqaale xoog leh oo ay dhinaca ugu ridi karaan doorashada amaba ay natiijada saameyn ugu yeelan karaan Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee Galmudug iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxweynihii Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Cusuble oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya iyo Sheekh Daahir Maxamuud Geelle ayaa ku jira murashaxiinta meel wanaagsan ka soo gaari kara doorashada Soomaaliya si kastaba murashaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya waxaa si rasmi ah mid kasta rajadiisa la ogaan karaa ama qiimeyn lagu sameyn karaa
markii la dhiso golayaasha baarlamaanka, waxaana murashaxiinta lagu qiimayn doonaa inta xildhibaan oo qof walba soo saartay iyo saamayntiisa doorasho ee wakhtigaas. sannadkaa waddamada carabta waxaa la sheegayaa inay ku soo biiri doonaan waddamo kale oo afrikaan ah oo lacago malaayiin doolar ah gelin doona doorashada Soomaaliya. murashaxiinta kale ee u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay inay ku hari doonaan markii la gaaro isdiiwaangelinta, halka qaar kalena ay ka hari doonaan daqiiqadaha ugu dambeeya ee doorashada Soomaaliya, maadaama la sheegayo inaysan haysan dhaqaale ay ku tartamaan.